قد تبدو فكرة توحد العرب فكرة خيالية أو بعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad moodaa in dib u midoobidda wadamada carabtu ay tahay fikir khiyaali ah ama mid xaqiiqada ka fog marka bulsho ahaan loo eego. maanta mawduuceena insha Allah waxaan ku eegaynaa isbeddelka dhacaya haddii ay dib u midoobaan wadamada carabta. جغرافيا. marka ay isku tagaan dowladahan badka dhuleed ee ka soo baxaya halkaas waxa uu noqonayaa 13.3 milyuun kiiloomitir square, taasi oo ka dhigan in ay tahay dowladda labaad ee ugu dhulka ballaaran marka laga yimaado waddanka Ruushka. sidoo kale haddii aynu ka eegno dhinaca badaha, waxay noqonayaan badaha ay ka talinayso dowladda tan badda Mediterranean-ka, badda Cas, badweynta Hindiya, badweynta Atlantic-ka. sidoo kale waxay ka talinaysaa biyo-mareenka Bab-el-Mandeb, biyo-mareenka Jabal Tariq iyo Hormuz, sidoo kale kanaalka Suez. waxa ayna sidaas ku tahay mid ay awoodeedu gaarsiisan tahay bari iyo galbeed. ديموغرافيا. waxa ay noqonaysaa dowladda tani dowladda saddexaad ee ugu dadka badan adduunka marka laga yimaado dowladaha Shiinaha iyo Hindiya. waxa ayna noqonayaan dadka degan ama dadka ku nool dowladdan 400 oo milyan oo qof. اقتصاديا. haddii aynu ka eegno dhinaca dhaqaalaha, waxa uu noqonayaa wax soo saarka saliidda ee wadamadan 26 milyan oo foosto maalintii, taasi oo ka dhigan 3 meeloodoo meel wax soo saarka adduunka. waxa ayna sidaas ku tahay midda iyadu go'aaminaysa sicirka adduunka. sidoo kale haddii aynu ka eegno dhinaca wax soo saarka beeraha, dowladdan waxa ay kaalinta 6aad ka gelaysaa dhinaca wax soo saarka adduunka marka laga yimaado dowladda Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Hindiya iyo Brazil. waxa uuna noqonayaa dhulka waxbeerista loogu talagalay 600,000 oo kiiloomitir oo square. waxa ay sidoo kale noqonaysaa miisaaniyadda dowladda tan 6 trilyan oo dollar, taasi oo ka dhigaysa dowladda afraad ee ugu miisaaniyadda weyn caalamka marka laga yimaado Mareykanka, Shiinaha iyo Midowga Yurub. waxa uu sidoo kale noqonayaa dhaqaalaha qofka ka muwaadinka ah ee ku nool dowladdan 750,000 oo dollar. عسكريا. haddii aynu ka eegno dhinaca ciidanka iyo askarta, waxa ay noqonaysaa dowladda tani dowladda ugu ciidanka badan adduunka. waxa ayna noqonayaan ciidankeedu 4 milyan oo askari. sidoo kale haddii aynu eegno dhinacaas iyo hubka ay haystaan dowladaha carabta, waxa ay noqonaysaa sidan. marka la isku daro diyaaradaha dowladaha carabta, waxa ay noqonayaan 5,000 oo diyaaradood. haddii hal dowlad laga dhigo, waxa ay ka dhigan tahay inay tahay dowladda labaad ee ugu diyaaradaha badan marka laga yimaado waddanka Mareykanka oo haysta 14,000 oo diyaaradood. dhinacaas iyo baddana waxay noqonaysaa dowladda tani mid haysata wax kor u dhaaf 1,000 markab oo ah nooca dagaalka. waxay sidoo kale dowladdan haysataa 18,000 oo dabaabadood ama kaarayaal nooca loo yaqaano. waxa ay sidoo kale noqonaysaa miisaaniyadda dowladdan ee dhinaca ciidanka 123 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigaysa dowladda saddexaad ee ugu miisaaniyadda badan dhinaca ciidanka marka laga yimaado Mareykanka iyo Shiinaha. حقيقة أم خيال؟ fikirka dib u midoobidda ama isku imaanshaha wadamada carabtu waa mid u dhow xaqiiqada marka laga eego qodobadan. waxaa ka jirta wadamada carabta kala qaybsanaan baahsan
oo ku kala jirta ummadaha hadday noqoto Ciraaq, Suuriya, Liibiya, Yaman iyo Suudaan. Kala qaybsanaantan ku kala dhex jirta ummadahan waxaa fududeynaysa in dib la iskugu soo celiyo marka laga eego dhaqan ahaan, af ahaan iyo diin ahaanba. Ummad aan waxba ku kala duwanayn in dib loo ururiyo oo loo mideeyo waa wax fudud. Haddii aynu eegno Maraykanka iyo Hindiya, waa ummado kala af, kala dhaqan iyo kala diin duwan, haddana waxay ku midoobeen oo samaysteen hal maamul. Sababahaas oo dhan waxay yihiin kuwa sahlaya in ay dib u midoobaan wadamada Carabta. وهي ما تجعل من الحلم حقيقة.